wasaaradda tacliinta waxaan si gaar ah u faraynaa ardayda Soomaali boqolaalka kun ee ardayda ah ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in la gaarsiiyo fariintaas macallimiintu ay qaadaan waalidiinta la gaarsiiyo ardayga la gaarsiiyo ardayga lagu abaal mariyo ardayda sida gaarka ah isaga saarta muxuu ahay dadaalka iyo joodiga sidoo kale ciidamada qalabka hay'adaha dawladda dhammaan waxaan farayaa in gargaarka iyo waxa gargaarka loo wado in wax lagu kordhiyo ma ogiye checkpoint-aan cashuur looga qaadi karin dekadaan cashuur looga qaadi karin airport-aan looga qaadi karin meel kale oo la joogaan maamul meel jooga ayaan ka qaadi karin maanta arinta abaarta oo waayahan dambe oo dhan Soomaaliya meel ku soo noqotay juqraafi ahaan meesha ay ku taalo iyo awaamirta Ilaahay wixii uu keenay waaye iyo climate change-ga sida adduunka uga dhacay iyo muxuu cibaarooyinkaas fasakhaada hawada iyo environment ku dhacay ah yaa keentay abaartan yaa sabab u ah sanadihii bana rooti soo wareegto marka waagii hore waa kala dheeraa jirtay 10 sano mar 15 sano mar ayay ahaa jirtay sida hadda ay taamayn hadda waxaad u maraysaa meel haddii aanay ka jirin meel kale ay ka jirtaa dalka meel haddii maxaan ku raadaayo roobabku ay ka da'aan dhulaad u maraysaa inay ka maqan yihiin elneenoodu markay timaadaan waa fatahaad webiyadu markay soo baxaan dhulka webiyadu maraan waa fatahaad oo dalagii waa ba'aya markii kale oo xilliga kale la gaaranayo roob la'aan dalagii haddana biyo la'aan ayuu u ba'aya mar biyo bi'inaya marna biyo la'aan ayuu u ba'aya marka arrintaas arrin aad iyo aad u dhib badan waaye halkan marka waxaan rabaa maanta warbixintaas la isisiiyey waa ku mahadsan tahay hay'adda Sodma ee dadaalka faraha badan ka muujisay wax kasta oo emergency ah xaalad degdeg ah oo dalka ku soo kortaaba Sodma waa inta Sodma la shaqeysa oo maxaan ku raadayay sympathy wise volunteers-ka ah ee shaqada u soo istaagto gabdhahan ay ka mid yihiin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin maanta marka waxay taagan tahay biyo la'aantii waa loo dhimanayaa abaartu stages soo martaa marba meel ay soo martaa roobkii la waayay waa dhibaato waaye beerihii bixi waayay cagaarkii ba'ay cawskii calafkii la waayay waa dhibaato xoolihii maxaan ku raadayay liito oo dhimasho bilaabay ama dhintay waa dhibaato waxa ku soo xigana waa dadku haddana inay dhintaan macaluulaad timid dadku waa nafaqa darro hayso marka dambana dadku waa dhimanaya marka hadda stageskaasi inta badan waa la soo marmaray meelihii ugu dambeeyay ayay hadda taagan tahay maanta marka waxay taagan tahay nafta badbaadinteedii qof Soomaali ah oo wixii uu kari karay aabba ama hooyo wixii ay kari kareen ilmoodu ku badbaadi kareen sameeyay laakiin duruuftii ay ka tanbadisay oo wax awoodoodii ka baxsan ay meesha ay yimaadeen waaye waxa u baahan in loo gargaaro oo loo gurmado Soomaalidu waxay ku maamaadaa ciyaaya loo ciladaanshaa qofka sheegay war dhibaato ay haysa dhahayo marka maanta ciidi ay taagan tahayo dadkii inaan u ciladhaamino oo gaarsiino adduunka iyo Soomaalida dalku waa ballaaran yahay dadkeenu waa badan dadaan ka warqabin oo ama media aan ku tixnayn ama aan meelihi dhibaatada ay ka dhacday aan joogo ama magaalooyin jooga oo aan aad iyo aad u warqabina jira marka in magaca dawladda hay'adan ismaraysa fariinta war dadkii waa dhimanayaan aan soo gaaro qof kasta oo Soomaali ah oo caawa iyo berri wax uu cun lahay ka badan haystahay inuu wax bixiyo yaa ku waajiba arday halkan taariikhda intaan soo joognay Muqdisho waxaana loogu keenay loor xiran oo kiila sokora iyo kis saliida iyo kis bariis iyo kis ku jirto oo la yiri ardaya soo aruurisay Yurub joogta maanta dalkeena ardada nambarka ardada aad u badan yahay in badan oo ardadaas ka mid ah waa in lacag waalidkood iska leeyahay bishii $10 ama $15 uu ka bixiyo kiila galeeya iyo kiila digira iyo maxaan ku yiraahdaa ardagaasi $15 bishii laga bixinayo guriga uu ka soo baxay waa laga awoodaa in laga helo
waxaas haddii laisku geeyana wax badan dad badan ay badbaadisaa. marka horta baaqeenna kan koobaad waxaan u tabinayna u diraynahay waa dadkeena Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isu gargaaridda inay ayaga bilaabaan oo ay waxay cuni lahaayeen wixii ka badan iyo wixii ninkii lacag meel u taalo ama gabadhii ay u taalo in ay qof walba intii karaankeeda horta ay bixiso oo ay sodmo ku soo hagaajiso oo ay soo wacdo muxuu ahaay call centerkaas meesha ku yaallo emergency-ga loogu talagalay soo wacday tiraa xagee geeya ama yaan u tagaa xagee ku shubaase qofkii aan macluumaad ay ka maqan yihiin. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa marka arrintaas inay u istaagaan walaalahooda duruufta hayso dhibaataysan xoolihii ay dhaafeen biyo aan haysanin kii beesa bixi karo biyo loogu dhaamiya kii raashin qallalan bixi karo oo la gaarsiiyo intaba waa loo wada baahan yahay. waxaan rabaa marka duruuftaas dalka ka jirta dadka Soomaaliyeed aan baaqa koowaad u direynaa marka ku xigtana beesha caalamkan u direynaa. caalamku waa ku mahadsan yihiin inahaas aan soo sheegnay abaaraha isku xigxiga dhacayay doorkii ay qaateen gargaarkii ay nala soo gaareen waa uga mahad celinaynaa hore. midka maantana waxaan ugu baaqaynaa ka codsanaynaa inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadkanaga. sidoo kale dowladda hay-adaha dowladda dhammaan waxaan farayaa in gargaarka iyo waxa gargaarka loo wado in wax lagu kordhiyo ma ogiye checkpoint-aan cashuur looga qaadi karin dekadaan cashuur looga qaadi karin airport-aan looga qaadi karin meel kale oo la joogaan maamul meel jooga ayaan ka qaadi karin. waa gargaar haddii la yiraahdo oo la isku raaco oo hay-adaas iyo hay-adaha samafalka ee la shaqeeya ama ha ahaadaano kuwa maxalliga ah oo dadka Soomaalida ay leeyihiin ama ha ahaadaano kuwa caalamiga ah sideedaba qof walba wuxuu ku kabi karo iyo ka laga leexdo in la yiraa mooye wax kale oo meesha ka furan ma jiraan. waa amar in maxaan ku yiraahdaa fududeyntaas loo sameeyo gargaarka. mar kale waxaan rabaa deegaanada sida gaarka ah loogu dhawaaqay ee dhowr iyo 40 degmo ah ee sida gaarka ah ayadoo la wada liito ku ugu sii liita waaye la yiri waxaan rabnaa in diiradda la saaro oo maxaan ku yiraahdaa ayagaas laga shaqeeyo oo loo hormariyo wixii la heli karo ama la hayo. hay-adaha dowladda oo dhan sidoo kale waxaan faraynaa ayaguna inay khaasatan hay-adaha nolosha bini'aadamka shaqada ku leh kii dibadda uga doona iyo kii gudaha uga doonaba haddii ay tahay beera iyo hadday tahay xoolo iyo hadday tahay biyo iyo hadday tahay waxbarasho iyo hadday tahay qorsheyn iyo hadday tahay caafimaad iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee qofka bini'aadamka noloshiisa waxa taabanaya adeega taabanaya haya adeegooda oo dhan inay u leexiyaan dhinacaas maxaan ku yiraahdaa samafalka iyo muxuu ahay gargaarka ay focus ka saaraan hadday tahay daawo iyo hadday tahay biyo iyo hadday tahay dhammaan. wasaaradda tacliinta waxaan si gaar ah u faraynaa ardayda Soomaali boqolaalka kun ee ardayda ah ee Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la gaarsiiyo fariintaas macallimiintu ay qaadaan waalidiinta la gaarsiiyo ardayga la gaarsiiyo ardayga lagu abaal mariyo ardayda sida gaarka ah isaga saarta muxuu ahay dadaalka iyo joodiga. sidoo kale ciidamada qalabka sida ayagoo dhiigooda daadanayo dagaalamayo dhaawacmayo dhimanaya haddana walaalkii ay u dhimanayeen oo naftooda ay u bixiyeen in yaanu biyo u cabo uga dhinto ama maxaan ku yiraahdaa xabad muufo ah maxbad rooti oo cuno oo uga dhintaay ayaga lafsidooda wixii ay gargaarka ka geysan karaan ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan oo dhan ayagana waa faraynaa hadii alla yiraahdo Soomaali oo dhan ayaan faraynaa in ay u istaagto arrintaas. mar kale waxaan bogaadinayaa hay-adda Sodma shaqada wanaagsan macluumaadka iyo muxuu xogti loo baahnay oo dhan ku diyaarisay muxuu ahaay dad heegan u ah 24 saac in ay ka jawaabaan wax kasta oo emergency ah oo dhacahay abaaraha hadda noogu weyn laakiin magaalada qarax haduu ka dhaco ayaga la soo wacayaa meel walba waa runtii aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa muxuu ahaay shaqada ay hayaan shaqo aad iyo aad wanaagsan. sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka
weligoodba ayagaa dadka u naxariis badnaa jiray oo dalka ayagaa muxuu ahay weligoodba u taagnaa meeshii la arkay iyo mustawihii kastaba dadaalkiinii inaad sii laba laabtaan oo maxaa ku raasi laba jibaartaan ayaan adinkana idinku baaqaynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi